بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أمة الصوماليات وحن بدنكم سلام يا صلاة إسلامك. سلام الله عليكم. رمضان مبارك. رمضان أنا بدنك قصيبة نقطة. رمضان مبارك. إلهي كو صونك يا صلاتك أقبله. الله ينقدركم أنك نار تلقى حرين يا ربي هينقدرك. وحن دنيا aniga oonan raali ka ahayn maanta inaan halkan soo fadhiisto ay Ramadaan tahay aan rabin kiiskan inaan ka hadlo sideedaba disgusting ah ee dadka wareeriyay haddana waxay noqotay wax laga maarsami waayo maanta inaan hortiina soo fadhiisto waa bil Ramadaan waa bishii cibaadada bil buuqa ma aha bil iscaaya ma aha bil isfadeexadeeya ma aha bil iska been sheega ma aha bil munaafaqad la isla dhex wareega ma aha waa bishii Ilaahay gacmaha la horsanayay ee jaaniska u ahayd dadka aanan bisha kale ee soo socotay tanteeda gaari doonin aniga oo taas og inay qaar badan ay dambaabayaan haddana maanta waan khasbanahay inaan hadlo kiiskan ka hadlo magacayga waxaa la yiraahdaa Safiya Yunus Jaamac waxaan ku magac dheeray Safiya Tusmo intiina ay taqaanana way taqaanaa intiina kalena barasho wanaagsan waxaan ay gabadhii haysatay baraha bulshada labadii week ee dhamaaday ilaa haddana roobka dhagaxyaalaha uu istaagi lahayn waxaan doonayaa qisada dhinacayga maanta inaan ka hadlo sidoo rabbi igu ogyahay inaan u hadlo maadaama ay Ramadaan tahay halka waxaan soo fadhiistay maanta idinkoo dhan haddaan idinku weynayo idinkoo dhan Ilaahay sidoo ogyahay inaan u hadlo waan soomanahay waa Ramadaan sheeko walba laba dhinac bay leedahay haddaad arkayso qof dhiigaya baa la yiri qofka hore ha ka taageerin waxa laga yaabaa kii ka soo dhiijiyay inuu isna soo dilay kiiskan haddaan idhaahdo hadu dhaadhacdidood ilaa iyo hoos u socotid kama gayoodeyno waa long story aad bay u dheer tahay wax badan oo runa jira wax badan oo beenaa jira wixii rabbi ogyahay qisada aniga dhinacayga aniga oo ina iga haynad kala rogataan ha lagu soo jawaabo hadna intan tiri haddana inta ina iga hayn sidii Allaygu ogyahay side-kayga ayaan doonayaa inaan ka hadlo rabbi sidoo igu ogyahay haddaan isiraahdo maanta Soomaalida iska dhaadhici haddaan isiraahdo maanta magacaaga image-kaaga ku dagaalan haddaan isiraahdo sharaf dhaca lagula maagan yahay iska geeji haddaan isiraahdo maanta Ramadaan weeyaan Soomaalida la hortago maxay been ka gad Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu beenta aan idin la hor imaado iiga tagin ina gablan iyo gaajo iyo gabow saddexda Ilaahay laga magan galaba ay kulmaan haddaaban maanta been idin la soo hor fadhiisto oo nasiraahdo maanta Soomaali beenka iibi haddii aanan waxan dhicin sheego oo wiilka islaameed carabkiisa qalloociyo oo waxuuna odhanin wuu yiri aan idhaahdana Ilaahay waxaan ka baryayaa calaamo aanan caalamka lagu aragani Ilaahay uu soo rogo carabku hay qalalo haddaan wiilka carabkiisa qalloociyo idinkuna aamiinta igu soo hufaa taas marka laga soo gudbo sheekadani aad bay u falxun tahay aad bay disgusting u tahay it's not only between me and him waxay noqotay sheeko laba qabiil gaadha waxay noqotay sheeko Soomaali oo dhan gaadha waxay noqotay sheeko dad gurubiye ah ay maaragtay u kala saftaan waxay noqotay sheeko aan daacad laga ahayn waayo dadkii saddex way u kala jabeen qolo tusma raacday sax iyo qaladba iyo qolo ninka raacday sax iyo qaladba iyo qolo ku dhex wareertayo sidii riwaayadiis ay hablayo hadmad guurso doontaan akuuku qaybtiisi markay tusma hadashana tusma runteed waay markuu isagu hadlana wallahi runtii way oo saas ah ayay ana way jirtaa dad yaaban oo dhabanada haysto meel ay ka bilaabaan loo iska anfariirsana way jiraan waxaan doonayaa inaan ka bilaabo haddaan isiraahdo halkii ay ka soo bilaabantay ka soo bilow ilaa iyo habeen dambe idii halka fadhiyeysaan laakiin qodobada ugu muhiimsan kaliya ayaan soo fadhiistay maanta halkan inaan ka hadlo hadday noqoto inaan exactly wixii dhacay sheego
halkay ka bilaabantay ka soo bilaabo istab idraahdaad maanta aad la wadaagtid igu wallaahi oo billaahi oo tallahi 3 saacadood iyo moor bay noqonaysaa waxaan laga gayoodayn bay noqonaysaa laakiin waxaan doonayaa dhowrka qodob ee waaweyn ee media dhex araraya ee dadankuna ku dambaabteen kaliyaati inaan inta xoog saaro maanta haday noqoto in laga hadlo oo ilaa iyo dib loo noqdo waxay noqonaysaa another day inaan u fadhiisto adduunkan wax walba inay soo marayaan waan filay laakiin waxyaalaha noocana waxaan habeen ku seexdoon ku soo toosay maaha weligeys maan lahayn sheeko noocana ayaad mutaysanaysaa intaad ifka ku nooshahay laakiin way dhacday wixii kugu dhacayaana waxaa la yidhi 100 sannadood ayay kaawan yihiin everything adduunkanaad ku marayso waa wax ilaahay loox maxfuudka ku qoray sax iyo qaladba xaq iyo xaq daraba marka waa inaan taas aamino haddaan isiraahdo staan horeba u sheegay halkan ka timi halkan ka yimi halkan aan ka idhi halkan aan u socday sanbuu yarisan baan erisan waxay noqonaysaa wax bilaa cusba waxay noqonaysaa wax qashin oo xinjiro fajaas oo lagu xanuunsado waxay noqonaysaa waxaad waa akhira seegtaan waxaan idinka soo bilaabayaa sheekada guurkan relationship ka noqday ayaan doonayaa inaan anigu side-kayga ka hadlo waxaa la yidhi tusmo markhaati ma haysato oo caddayn ma haysato oo maxay ma haysato oo kan ma haysato guur la ii soo maleegay barnaamij laga soo shaqeeyey wax maxaan kula tiimaysan wax ayuu horta waxani ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay waa run markhaati ma haysto ilaahay aan ahayn waa run meesha ma joogin anigu cabdinuur daljir nin la yidhaahdaa isoo qaban ilmo usoo dhalay saad idinkuwa meel walba walqinaysaan maalintii aan mehersanayay meesha laygu mehersaday ma joogin maanta hadduu yidhaahdo qaadigii iyo markhaatigii keen ilaahu cadaabta igu salool keeni maayo because ma garanayn qaadiga isagaa keensaday markhaatiyaasha isagaa keensaday odaygu isagu ii dhiibay un baan la hadlan wakiishay meherkaygu sidaabuu ku dhacay 8 sano laygu qabay ilmana aan ku dhalay kan inay saagtali saasoo kale unbuu ahaa nin baa waxaa la yidhi geed baa lala tegayoo gar baa loo dhigtay gartii markii loo dhigtay ayaa ninkii gartii lagu moosay waa laga gar helay banaankaa la dhigay daacadna wuu ahaa meel alla meeluu wax ka qabto waaye markhaati ma haysto waxba ma haysto ninkii wuu aamusayoo wuxuu yidhi ilaahayow subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahayow alla ilaahayow aamusnaantaan kugu nacay waayo ilaahayow keli haatay unbaa arrintiisa ogaa kayskan waxaan qodobkaa kaga gudbaya mar haddaanan anigu caaisha ummatul mu'miniin ahayn oo maalintii dembigan oo kale lagu soo oogay tii lagu dhigay caaisha ummatul mu'miniin xaaskii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yiri way sinaysatay mar haddaanay sideedii aayado quraan soo degay mar haddaanan maryam ciise hooyadii sidiisa ilaahay hiilinayn oonan ifka ilaahay maanta uuna hadlayn kayskaasi wuxuu ahaanayaa she said and he said unsolved kaasuna ku dhamaanaya ilaa de isagu ka run sheego ka hor wuxuu ahaanayaa unsolved cabdi inaan isqarsano oo naan qof nool u sheegin anay iga timi anigay ahayd qofkii ku dagaalantay inaanay cidina maqlin aan isku dhaarsanay inaanaan qof nool u sheegin ismaan lahayn de this is gonna happen because weligay iyo waliidkay waxaan oo kala dhaca maskaxdayda kuma jirin isagu laakiin faji uu ka shaqeynay bahayd guurka taas baan idinku odhanaya
tan la leeyahay way sinaysatay oo way maxay soo ilaahay ku gaftayna waan u soo socdaa. muddo sanad iyo waxoogaa ah kow anu waxaan ahaa qof cilaaj ah, waxaan ahaa qof xanuunsan, waxaan ahaa qof qalbiga ka xanuunsan, waxaan ahaa qof emotionally iyo physically bajiran. intaa dhakhtar daba wareegta sariirtuun saaran uun yuusaysa. sidaan horeyba idinku sheegay ilaahay wuxuu ogyahay oo rabbi ogyahay keli haataan sheegi kara. waxaan marag ka ahaa ee markhaati ka ahaa keliyaan sheegi karaa. wixii mana awaal ah ilaahay subxaanahu watacaala isagaa og, anigu ma sheegi karo. waxaan aaminsanahay oon maanta anigu aaminsanahay oo ilaahay igu ogyahay shaydaan in la ii adeegsaday. waxaan aaminsanahay in madiido la igu sameeyey. waxaan aaminsanahay in baawarkii ilaahay isiiyey la igala wareegay. waxa ii caddayna oonan maanta haddii aan ka been sheegayo, haddii aan isleehay kayskan ku adkayso, haddii aan in uun maanta qalbigayga aan ku jirto Soomaali arrinkan qodobkaa ka gad, waxaanan adduunka ilaahay ummadda tusin ee ugu xun ifka ilaahay igu soo rido. aamiin dhaha. calaamo aanan caalamka lagu arag ilaahay korkayga inuu ka ifiyo. aamiinta soo dhaha. sheekadan jacaylka ah iyo shukaansigan iyo waxan iyo sheekada Cabdi wuxuu kasoo shaqeeyay bay ahayd. isaga ila yimi. he had a plan, laakiin anigu daacad baan ahaa. markii hore oo dhan, bilihii hore oo dhan anigu maan jeclayn. waan la yaabanaaba dee isagaan ka tooxsan jiro kula yaabana. maalin maalmaha ka mid uu isoo wacay. wuxuu yidhi gurigiisu ka guuray. waxaan ku yidhi guriga maxaad uga guurtay? wuxuu yidhi guriga waxaan uga guuray magaaladeeda waxaa soo baxay niman Suudaani oo 20 gini la siiyo oo qofka sida aad rabto adigu kaaga dhigaya. amba ha kula joogo amba ha kaa maqnaado. qofka saad adu doonayso ayay kaaga dhigayaan. waxay sameeyaan black magic. madiiday sameeyaan, sixir bay sameeyaan. qofka waxay ka dhigaan qof saad adu doonayso kaaga dhigayaan. oo dabadeetana gabdhihii saaxiibka la ahaayo dhan baa nimankoodiisa ku sameeyay. markaa waxaan u baqay naftayda. reerkaygaan uga soo baqay. ilaahay subxaanahu watacaala isagaa iiga marag iyo markhaati ah inankaas waxaan ku idhi. isagaa ii marag. wuxuu ku adkaystay wuu iga dhaadhiciyey because of sixir, cabsi sixir uu ka qabo inuu halkaa ugu guuray. aniga maanta waxaan aaminsanahay sixirka uu igu lahaa gurigaygaan uga soo cararay inuu aniga ii adeegsanayay Cabdi. bil kama soo wareegin. bil buuxda maalintaas kama soo wareegin. markaan noqday qof beeshana oo jismiga ka jiran oo xanuunsan. ilaa iyo hadda xaqiiqada aan soo helayna 100% maan hubin, laakiin waan iska mina awaali jiray. waxay noqotay wax kasta oo Cabdi yiraahdo inaan fuliyo. wax kasta oo yiraahdo samee inaan sameeyo. wax kasta oo yiraahdo keen inaan dhiibo. inaan noqday qof sariirka ururay oo aan xanuunsan oo dhakhtar jooga. ama maxaan ku dhahdaa kaniin qaadanayo kaniin ku socda oo maalin walbaba appointment leh. iyadoo ay sidaas tahay uu la og yahay meeshuu igu xidhay inankaasi, haddana wuxuu bilaabay inuu masayr
nin iga masiirsan iska kaydhigo halkanaad ka baxday internetkaad xidhatay telefoonkaad xidhay iyo aad la hadlaysay iyo kula hadlayay qofkaad la hadlaysay screenshot iga soo qaad waa ay qofkani ii soo sawir iga soo qaad dagaal iyo buuq aniga waxay igu bilowday cabsi inaan dareemo murug inay geeri igu dhacday oo kale inaan ahaado qof qalbiga ka ooynaya inaan isku ooyo habeen iyo maalin halka ay sartu ka soo qurantay ay masiibaduba ka timi ayaa halkana maalintii dambe wuu soo wacay wuxuu yiri kitaab quraan soo qaado waan ku dhaarinayaa maxaan ku dhaartaa dhaar baad maraysaa waxaan kugu dhaariyo ayaad ku dhaaranaysaa waxaan ku yiri waxaan maqlay meesha lagu dhaarto geed kama soo baxo roobna kuma da'o ma gurigeygaan ku dhex dhaartaa wuxuu yiri dhaartaasi waa ta beenta lagu dhaarto haddaad run ku dhaarato waxba noqon maysid haddaad been ku dhaarato laakiin dee waa dabar go-aysaa waayahay haddaan anu dhaarto oon anigu dub iyo diir u kala baxo adiguna aad ila googo-dida kitaab soo qaadaan dee waanu isla dhaaran anna waan dhaaran soo inaan dhaarto qasab ma aha adiguna soo qaado waayahay buu yidhi kitaab buu soo qaatay kitaab buu soo qaatay wuxuu yidhi kow igu dhaaro inaad jeceshahay 2 ku dhaaro meeshaan joogo inaad imanayso 3 ku dhaaro inaanad noloshaada nin la hadlay ama 3daas baa ahaa waa haystaa biisi 3daasi 3dii baan ku dhiftay kitaabkii quraanka baan gacanta saaray isagana inta in leegiyo in ka badan ayuu ku dhaartay sidii baanu isku dhaarsanay waqtigii uu ila ballamay inaan u tago ayaa waxa bilowday coronavirus quarantine baa adduunka noqday waxaan ceebsaday inaan iqabin meeshuu joogo inaan tago waan la hadlay waxaan ku yiri wala waqtigaanu ballanay uu soo dhow yahay laakiin kuma iman karo oo maxaa dhacay horta number 1 isma qabno inagu is qabnano meel dashaad joogto kugu ma imanayo de waa caadi marka timaado waa inuu ismaarsan number 2 income aan ku soo taraafalo intaas lacag ma haysto dhawaan baan Afrika ka imid dhowr bilood ka hor wax ma haysto number 3 hadii corona halka quarantine igaga dhigo caruurtaydi waan ka xidhmayaa ana don't have excuse aan Egypt ugu bad xidhmade habeenkaasi cirka biyo kuma hadhin inankaasi sidoo u xanaaqay abidkiis uma xanaaqin wuxuu yiri ma kitaabkii quraankii baa ku celin waayay ma intaad kitaab quraan iigu dhaaratay ayaad igaga baxday oo in kitaabka quraanka adduunku hayn celin waayay adduunka maxaa ku celiyaba waxaan ku wala waqtiga ii bedel waa run waan dhaartay waa inaan ka dhabeeyo laakiin timeka ii bedel ku bedeli maayo هذا بدلين أنا أقول ما إيمان كرو دي أدي إلهي سيد كل إنسان إلهي واقف الرحيم قلبي يجوار كيا إن أنا إما ذكر بليل المديدين لكن ذكرونها بإلهي بسور جمانة إصلاح كارنتين بدون كن قناي هبين كاس أيوة عبد القرآن كان قاري إنه عمر جاي سو قابيو عمر جاي إنه صو قابيو ما أنت سو قاري القرآن كان تلفون كيبورد جاي وإيجا أما قناة مالين يوح هبين كدب أيو إلى سو هذلي وحيري وحن دوني أنا وضع هذا له سيريس أنا وضع هذا له سكن كان نحن رواية تلفون كان قبصدي 24/7 مركان هذلي إنه وحن كود هذا جرني فيديو كول نبى عبد مو أقولان جرين إن كول عادي أكو هذا له فيديو كول إن كو هذا له كو إنتان جوج إيريدي ده واحد جوجو دن إن تصو إن أنا عدي إلى جوجين دن مركز وهذا جري وحيري وحن دونية وانتجي يا هرتا كاركي جرو وانسك كنسلية
hargeysaan tegaya meeshan ma doonayo inaan sii joogo laakiin adiga waxaan kaa rabaa $5,000 inaad i siiso ilaahu sooniya salaad ha iga aqbalin haddii aan inankaa qowlkiisa qalloocinayo $5,000 inaad gacantayga saarto waxaan tegayaa hargeysa baasaboorka Soomaaliya ayaan qaadanayaa waxaan u sii baxayaa Turkiga waan oran karayay in kamlaan baaba ku jirtay qodobkii hore aan kuma iman karo waxa ku jirtay I don't have money 2,500 xageen ka keena saacadan xidho soo amaaho waan dhihi karayay amaah meel aan ka waayay iyo ma hayo iyo laakiin I have no power anina ka iskaga difaaco 2,500 wuxuu 2,500 hadda ii soo dir 2,500 markaan Hargeysa tagaad ii soo diraysaa waxaan iri waaye 2,500 baan shubay taas waxa dheer 2,500 waxay ahayd lacag aan u baahnayn oo dee uu ku dhoofiyo Turki ku tagay kiradiisa iyo biilkiisuna meel bisaarnayn waxa ka soo wareegtay midha week intii processkiisu socday ayuu haddana ii soo fikiray wuxuu yiri kuma aaminsani sababta oo ah case numberkii hore kow aad ka baxday ee dhaaratay ayaa wuxuu dilay aaminkan ku qabay oo dhan arintan inaad faithful ka tahay ma ogaan karo ilaa aan ismehersano maxaan ku idhaahdaa kuguma aaminayo macnaha inaan nuunusa iskala hadalo wuxuu sanka igaga tolay qasab inaan ismehersano muddo 3 jeer ayaan maalintii aan ku heshiinay inaan ismehersano ka salon dib uga dhacay haddaanay taasi dhicin ilaahow casiisow casaawo jallow ummadda Soomaaliyeed inta i daawanaysa i taqaanay kayska la socoto wada nool waxay igu arkaan oo musiibo igu soo rog haddii aan inanka ka been sheegayo oo ina taasi dhicin qasab ayay noqotay inaan taana idhaahdo haye laakiin hal shay aan ka codsaday inaanay dadkuna maqlin oonan xataa asxaabta dhow aanan u sheegi karin sidii bay ku dhacday isaga oo intaasoo shay haysta oo dhaartii haysta widaariyay oo meherkii haysta oo lacagtii iga dalbaday haysta haddana inankii wuxuu noqday qof aan istaagin oo qaboobay dacwad uun socoto hadal uun socdo canaan uun socoto dirir uun socoto uun socoto berigii hore oo dhan handadaada iyadu waxay ani kaliya igu may bilaabmeen handadaada wuxuu igaga bilaabay koowan isdili intaan cajalo duubo ayaa waxaan umada u sheegay inaan dartaa isku dili adiguna umada waxaad kaga bixi taas oo waxaad noqon gabadhii wiilka intay ciqaabtay ee dhibtay ee jacayl ku gumeysatay oo ninkaasi darteed isku dili aniguna xanuunkan ma qaadi kara inta ka badan adduunka waan ka tagay inuu isdilo ayuu igaga dhigi jiray bowling aniguna run baan moodi jiro mar alla markuu isdili baan dhigi jiray Ilaahay ka cabso waxa sidoo kan muwaali yahay miyuu xanuunsan yahay armay wax jiraan armay dhaf tahay qof serious oo ilintu ka daay soo xanaaqsan oo qaylinayo oo kule hadda naftiis ka gooy wax alla wuxuu codsado saas baan ku filin jiray sidaan horeba idinku dhaartay idinku habaarkaygii hore dabada haya haddii aan hadal beena oo meesha ku jiro ileen maanta Ilaahay un baa ii marxaatiya iyo isaga inta markaan halkaas la joogno cajaladii wuu bedelay inankii wuxuu bilaabay inuu waan isdilidan laga gudbo waxaan oo dhan laga gudbo inta yar waa intuu sugayo processkii u socday Soomaaliland maalin maalmaha ka bina isku dhacnay waan soo baxayo hees yar baan dhageysanayo heestii baan suray Facebook meesha yar story-ga ayaan soo dhigay wuxuu arkay inaan isaga ku dhaga hadlayo wuxuu yiri
maansuu soo qoray weyn dad inta badan waa dadka facebookiisa shucuurtiisa kusoo qora maansuu soo qoray wuxuu yidhi dhaga hadalku waa ceeb hadday sharaftu dhelido haddii aanan dhimanoo karoonuhu i dhinac maro waa inoo dharaar kale marka aan dhulkii tago inaad dhayican tuugtiyo in dhanaan ku madax maro screenshot baan ka qaado waana daray waxaan ku ihi maxaad igu hanjabaysa dadka aanan maansooyinka akhrinayn suugaanta garanayn ee af soomaaligu qaliilka ku yahay ayaa dee waxaan loogu sarbeebaayo waabad hanjabaad cad oo banaanka taaladee markaad soomaaliya tagto maxaad igu samayn kartaa soomaaliya baad joogtahay wuu qoslay halkii baan ku heshiinay maalintaas dhowr cisho kadib wax yar baa ka dambeeyey aduu dhowr xoogaa maalmihii baanan dee taariikhdii ilaan maan qoranayn oo ismaan lahayn akhri baa lagu odhan noloshaadii ayuu ila soo hadlay wuxuu igu yidhi nin baa imanaye waxaad iisoo dhiibtaa iPhone 11 telefoonkii baan diray telefoonkii iPhone 11 markuu cabdi u tagay cabdi wuxuu bilaabay inuu recording igu sameeyo wax kasta oon ka hadlayno haddaan xadiisayno haddaan dad xamanayno haddaan hees qaadayno haddaan quraan akhriyayno haddaan sexual talk ka hadlayno wax alla waxayna dhex maraya he was recording me the whole time waxaa la gaadhay safarkiisii wuu safray hargeysuu tegay hargeysa markuu saa uga degay ayaan la hadlay waxaan ku yidhi ma tegtay hargeysa nabad soomaad gaadhin haddaba waxaad samaysaa waalid baa kuu jooga walaal baa kuu jooga caruur baa kaa horeysa asxaab baa kaa horeysa waa magaaladaadooda intaa ka maqanayd markay hargeysa kusoo tufto eed qaraabo salaanka iyo qayilka iyo asxaabta iyo adduunka kasoo boodo haynoo ahaato waayahay buu yidhi waxaan ku ihi lacagna waad haysataa haddii aad ku kifaaxdo $1 oo maalintuu dhoofiya aan u diray gacanta ku haystay waxaan ku ihi intaad $1,000 iyo hargeysa isla soo gurinayso dee reerihiin iyo qaraabo salaankaaga iyo asxaabtaada kusoo baadal garayn maayo waan iswici jirnay marmar laakiin telefoonkii video callka ahaa ee 24/7 ahaa ayaa yaraaday maalintii dambe uu ila soo hadlay wuxuu yidhi ballan inoo qabaa inuu arrinteena kaga hadalo waayahay baan idho ballantii baan qabtay bisha 18keedii ayuu ka degay magaalada bishii ku xigtay 9keedii ayaan ballanta qabsanay ballantii oo wax yar ka hadhan tahay ayaa waxaan isku qabsanay gabadh hees wadatay heesta loo soo sameeyay ula tagtay isaga iyo fanaan ina fanaana heestii bay ka qaadeen gabadhii 1500 ilaahow rabbi oo raxmaanow naarta jaxiima igu salool haddaan ka cadho ka waday amba qabyaalad ka waday amba ka xanaaqay gabadhu igu haybay waan waco waxaan ku dhooriyaahay anigoo sheekadu ay kaftan iga tahay ma $1,500 baad gabadhidan hees u sameyn ka qaadatay oo iimaanka bad laadiin heestiyada wadata kaliya waxay idinka doonaysaa waa cod kabiga inad ka doonaysaa sidee u dhacday inaad $1,500 ka qaadaan idinkoon midhana u sameynay wuxuu ii rogay inaan qabyaalad u hadlayo oon leeyahay maxaan ku idhahdaa si qaldan buu hadalkii isaga u galay anagu inankii heesta qaadayna ma lihin inantii heestana ma nihin laakiin dee hawadii adoo farahay ka baxday ballantayadii halkii baan isku dirirnay demiya rax baan isku nidhi anugu haddaan idhaahdo haddaan isdirirnaba cabdi isagun bay caynay haddaan isku xanaaqnaba isagun baa bilaabay haddaan anigu malaa'iig meel taalaan ahaa haddaan idhaahdo dee been baan idin sheegay I was firing back to codad naastu ii soo duubay anigu codad baan duubay handadaadun baan antayda ku jirin iyo hanjabaad maalintaas teleefonkii baan ka qaban waayay cabdi way soo wacay waan qaban waayay wuxuu ii soo qoray qoraal dheer ayuu ii soo qoray qoraalku wuxuu ku bilaabanayay adduunka intaa la eg haddii lagu siiyo
wax walba haddii gacanta laga saaro billions of dollars haddii lagu siiyo waxa aanad marnaba helaynin waa sharaf waxa aanan lagaa gadaynin waa sharaf saacadda laga bilaabo warqadii waan hayaa ilaa hadda waan hayaa screenshot baan ka qaaday waxa aan duulimaad ku ahay waxa weeyaan sharaftaada tusma la wada jecel yahay baa tahay tusma la wada neceb yahay haddaanan kaa dhigin gaal baan ahay أنا waxaan garan waayay marxaladda ilaa xadkaas waxa gaarsiiyay qoraalku sidoo uu naasti u yahay ereyba erey uga foolxun yahay ereyba erey uga xun yahay waqasamu bi aayati Allah qofka akhriya uu matag baa qabanay wuxuu ku qoray detailkii oo dhan buu isoo qoray inuu hayo fiidiyoyo inuu hayo sawiro inuu hayo fiidiyoyo aanu diray inuu hayo kuwa uu duubay inuu hayo diis inuu hayo daa oo waliba detailkoodii aad yaabayso screenshots intuu ka soo qaadayna uu soo raaciyay wuxuu yiri saacada laga bilaabana kule maalinta haddaan naxdin u dhiman waayay wax badan ayaan idin dhex joogi doonaa haddaad idin necebtihiin iyo haddaad jeceshiinba wax badan ayaan idin hor taagnaan doonaayoon halkaas soo joogi doonaa haddii maalintaaba naftu idayn weydo waxaana weligay aragoon maqal bay noqotay waxaana filayn bay igu noqotay waxay igu noqotay murug ceel meel aan ka bilaabo ayaan waay waxaan ku go'ay bariyootan walaalnimadeeni aawe jacaylkeeni aawe nolosheeni aawe faamilinimadeeni aawe wuxuu yiri waxaad cadeyn u haysato ku dood waxaanad cadeyn u haysan ha isku daalin maalinta laga bilaabo waxaan noqday qof sanka inta fiinya laga galiyay sidii dibida saas loo hayo waxaan ku qasbanaaday amar kasto la soo rogo inaan fuliyo habeenkaas waxaan isku dayay inaan isdilo shaydaanku wuxuu ii sheegay maanta haduuna sameeynin bariba kugu sameeynaya marbaba hadii ay sharaf dhaca inta la eeg kugu soo socdo adiga iyo ceebtaadu caalamkan ha ku kulmina ee kala horeeyay haddana ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga nasri kale igu soo rogay ilaahay wuu imaqlayaa rabbi wuu imaqlayaa arrintii waxay noqotay arrin madow oo depression ah oonan hadli karin oonan sheegi karin oonan waan hayaa codadkiisii qaar baan hayaa uu leeyahay qof haddaad u sheegto bal adigu qof uun arrintan kala hadal ila soo hadla taasaaba inoo xidhan qof ila hadla uunoo kayskan waxaan igala hadla uun bal adigu kala hadal ismooy waxay igu noqotay cirna kaa dheer dhulna kaa dheer baryootan dabadeed midda waxa ka soo wareegtaan u maleynaya 2 cisho iyo bariye ma 3 cisho habeenkii oo dhan baan bariyay bariyadii way iga diiday waan iskaga tagay maalintii dambe sidii baan u kala maqanayn iyo tii ku xigtayba maalintii saddexaad buu soo wacay wuxuu yiri na waxay doqontii waxa saad ma lasaynay iga suurtoobaan dhigatankina waxa ku qooro marka diga xanaaqsiiso in xanaaqo ayuun baan waa meesha kaliya ka qaban kara waxaan ana duubtay naagtayda tahay waxaan u duubtay aniga og laakiin waxaan adiga kuugu talagalay inaan kuugu xumeeyo ma aha fiidiyodan leh ana diray gabaygii maalinta dhawita la soo dhigay baa ku jiray maalinta kadib waxay noqotay arrin rakaata ah oo mar walba oo wada hadalo mar walba oo af wax uun jiraanba amba sida uu rabo u waayaba ay noqoto waa banaanka taala waxay igu noqotay arrin depression ah oo ilaahay wuxuu igu ogyahay aan ku qarwo oon ka seexan waayo oon ka soo toosi waayo heer waxaan gaadhay 90 days markaan soo jeeday 40 minutes markaan gamaba aan soo kaco 1 hour ka yar markaan gamaba aan soo kaco oo stress heart attack igu dhaco oon isbitaal ku galo
habeenkan cisbitaalka gelayay ee ambalaasku i qaadayay cabdi wuxuu igula hadlayay video call waxaan ku igula hadlayay arrintaa inuu igu handado habeenkaas arrintaa waxaa ku soo biiray waxaad idin soo dhaafay social media-haygoo dhan cabdi isagaa passwordkooda haystay hadday Facebook tahay hadday Snapchat tahay hadday tahay maxaan ku idhaahdaa everything I have wuxuu haystay passwordkooda waxaa jirtay gabadhan saaxiib nahay inay maalin sawir ii soo dirtay WhatsApp-ka iigu soo dirtay sawir markuu kuu soo dhaco automatically wuxuu tegayaa camera roll-ka habeenka ambalaaska la igu qaadiyay wuxuu ii soo dhigay sawir comment waxbuu Facebook ku qorqoray way ka comment gareysay commentigeedii buu ka xanaaqay telefonkeyga kale hadaan baaro waan helayaa commentigeedii I think inaan helayo hayo anaa wax soo qoray then commentigeedu wuxuu ahaa kalsooni ka xoog jabto xalkeedii baaraya intaas ay qortay wuxuu u maleeyay inay isaga ka hadlayso screenshot buu ka soo qaaday wuxuu yiri waxayna ogeyn inaan aabihid ku cuni karo oo maxaad yeelaysaa comment bay iga qortay way saaran tahay idaa kula talisa idaa san ku tiraahda sawirkii bay soo diray ilaahay casaa wajallaan ku dhaartay adduunkana ceeb waa tu ilaahay huwa aakhirana cadaab wax alla wixii ani la igu handadayay waxa igala weynaaday sawirkaas waxaan ku yiri walaalo sawirkan waxaad kala baxday snapkay gabadhan waa walaashay ma oga inuu sawirkan adiga gacantaada soo galay aniga iyo iyada inaan ku kala dhimano iska dhaafe de adduunkii baa ceeb adna uga baxaysaa anagoo dhan uga baxayna waxa doonta ani igu sameeyo inaan taas meesha ka saar wuxuu yiri ma anaga oo taa ku buuqayna ayuu habeenkii wadnaha xanuunay ilaahay baan ku dhaartay dhiiga iyo nafta i galiye cabdi way daawanayay habeenkii markii aan ambalaaska la ii wacayay in caruurta ku lahaa hooyo ambalaas ii wac way daawanay dhakhtar baan galay dhakhtarkii baan ka soo baxay week iyo bar baanaan ismaqal isaga maalintii dambe way soo wacay isagoo qoslay wuxuu yiri wadna xanuunkaagii brainka ahaa ka waran qofku markuu hagaagsan yahay oo normal yahay waxyaalaha inta la eg ee dhacaya ayuu amba cawdaayo dad u sheegtaayo cabtaa ama maxaan ku idhaahdaa ama de go'aan ka gaadha halkii baan haddana ka bilownay waan kasii heshiinay hadalkii markuu go'i waayey ee waan kusoo dhigidii go'i weyday ee gabadhii hadda baalkeedii in laygu handado inkaygii laygu handado ee uun sidii laygu handado inantii waxaan ka maarsan waayay inaan u sheego wixii dhacay iyo see wuxuu dhaceen aan iyadana ku idhaahdo commenti ha ka qorin ha la hadlin please ka fogow isaguna wuu baloogayba markaas waan soo fadhiisto waxaan ku yidhi maalintii dambe wala aan wada hadal leh bal isku keenkeen waxaan ku yidhi walaal wax qabso maanta waxa la wixii aad qabsato ayaan ku siinayaa wax uun qabso si aad iiga go'do wuxuu yiri $21,000 oo u dhiganta sharcigaygii aad kansashay ayaan doonayaa waxaan ku yidhi waayahay marxaba so 21 maaha gacantan kaa saaraya ciddii kuu qaadi lahayd keen wuxuu yiri cidda ii qaadaysa xay ka timi dee waa ina marag lahaato ma $21,000 baan qarsoodi kugu siiyaa say u dhacaysaa cabdi markuu markhaati lacagtaasi uu ku qaato waayey ilaahayow
toddobadayda ubada iyo intaan ehel iyo arqab ka naxaba aan cidla ka soo fadhiistaa cid lacagta u qaada iyo si uu wigaga qaado markuu waayay isagoo isagoo qoslay wuxuu yiri nama lacag inta leeg baan ka qaadi lahaa awal baaban ku dhimanay baaban ku ululiyay baaburkan ku raacaba nagsidan ku galiyay xoolaha inta leeg xageen seen miyaan ku qoraa inaan waxaas ka qaato hadaa maxaad ii lahayd lacagta keen dewan eegay waxaan ku eegay sheekadii sidii bay isku soo tartay way isdaba socotay waxay noqotay in topic intuu ii bilaabo aan qof xamanno human baan nahay oo duubo oo yiraahdo hebel baan ka hadlaynay soo ma xasuusatid hebel ayuu dirayaa wuxuu bilaabay asxaabtaydii oo dhan one by one inuu u qabto dadku igu yaqaanay oo dhan inuu qof aan ka wada hadalay oo iduubay ka dhigo inuu qof maxaan ku iraahdaa uu isagu markuu wax ka waayaanba wixii waayo uu balooga uu tuuro uu ka dhigo gidi dadkii uu igu yaqaanay 100% wuxuu isku dayay inuu banaanka iga soo fadhiisiyo gabadh walaashay oo caan ah ku jirta fanaanada oo qalad ka galay oo anoo taleefanka video aan ku wada hadlayno anigu fataalad ma ahi ciyaal suuqad ma ahi wax dhimatay ma ahi wax dadka sharaf dhacooda ka shaqeysan ma ahi taleefankayga waxa ku jirta my own sister oo soo hadlaysa walaashay oo soo hadlaysa iyo sawirkiisa isagoo video call ku hadlay waan soo dhigi oo magacii walaashay korka kaga qoran yahay oo ku khasbanahay screenshot inaan ka qaado abdaaniga ninkaygu ahaa saaxiibkaygu ahaa best friendkaygu ahaa walaalkaygu ahaa qof aan ku sir qarsado ahaa qof aan dadka kala hadlo ahaa qof wixii xun iyo wixii sanba aan ka wada hadalo ahaa qof markaan la hadlayo waxa khasab ahayd inaan qofka aan la hadlayo screenshot ka qaado oon u diro sheekh iyo shariif dawmada video call kama wada hadli jirin magacoodii iyo numberkoodii intaan sawiro aan dhaxdo dad hadafkana ku hadlaya hebel baa la dhahay hebel ayaa la dhahay qofkaas aan la hadlay abdi isagoo meeshuu igu xidhay og oo kun jeer iqofilay oonan talaabo qaadi karin oonan dacwoon karin oonan qof la hadli karin haddana sanku wuxuu ii durnaa everybody aan la hadlayo inaan ka sawir ka qaadano jiro gabadhaas anoo la hadlayo ku wada jirna leenka ayuu isoo garaacay waan ka qaban waayay WhatsApp sawir baan qaaday anoo kaliya ka wada iblaayaan la hadlaya waan ku soo wicin waan diray sawirkii buu dhigtay cilad wuxuu u lahaa si aan qofka u kala dhimano 100% u kala dhimano inuu maalin kale qofka sheekadiisa keeno qofan ka wada hadalo iyo qofan hadalkiisa ka wada hadlinba intaasoo qof baan xasuustaa oo dartiis ku dirarnay marka sheekadii uu waday aan deelay wax ka garan waayeen la qaadi waayay qaaran isla xamanoon jarjarnayna way jiraan oo xantii intuu u ururiyay oo diray iyo qaar u hayaba hadoo la igu handadayaba way jiraan sawirada la sheegay hablaha saaxiibada nahay saas bay ku baxeen oo ilaahay igaga marag yahay oo igaga marxaati yahay waa tii cudurka adduunka u xun AIDS iyo kansar alla isku kay dara ilaahay wuxuu igaga marag yahay sawiradaas saasay ku baxeen haddaan idin ku tala galo inaan halka intaan fadhiisto umada baabi'iyo millions of people baan gubi karaa markaan ugu tala galo inaan 10 telefoon intaan qaato qofna duubo qofna sawiro qofna aan sameeyo bulshaan ku dhex jiray umada ilaahay oo dhan baan baabi'in karaa sawirada horta saasay ahaayeen halka markay hawsha marayso waxaan ku dhiirday inaan dacwoodo waxaan la hadlay inaan la yiraahdo Maxamed Guuleed way isku haybihiin isagoo Manasooda jooga siday wax u jireen baan u sheegay waxaan la hadlay inaan la yiraahdo Fuaad waa bari oo ahaayo joogo abwaan labadoodba waa abwaano waxaan u sheegay wixii dhacay aniga oo ka duulaya inaan arrintan media iman dadka igu haybta aanay maqalin waxay igu yiraahdeen waxaan la hadlaynaa caaqilkiisa
caaqilkiisa markaan la hadalnana caaqilka waxaan ka codsanaynaa inuu suldaanka u geeyo uu suldaanku dhaho duciya habar kala dooro hadalkuna halkaa ku damo waxaan anigu ogaana qofka kaliya adduunkan ka haybaysto oo ka boqo inuu suldaanka ahaa alla yaa raxme waayahay baan idhi inamadii way la hadleen caaqilkii bay la hadleen caaqilkii baa la hadlay wuu nool yahay isaga caaqilkiisa caaqilkii maalintii uu suldaanka u geenayay ee lasoo ballamiyey suldaanka in loo tago wuxuu ku yidhi caaqil miyaan weligay wax kaa diiday tale aad soo jeedisaan qaadan waayo amar aad igu soo rogto oon weli ka hoos kacay miyaad garanaysaa de maxaad igu geenaysaa suldaanka adaaban ku ogolahaya waa sidii caaqilku yidhi caaqilkii wuu soo hadlay wuxuu yidhi inankii anuu ogol yahay hawshii anaa dhammaynaya ani hala iga horsugo codadku ii soo diray waan hayaa halkan ay ku jiraan caaqilkii kama soo wareegin 4 cisho markuu cajuun kaga taqalusay 4 cisho kama soo wareegin wuu ku yidhi aniga reerkayga iyo afaarahayga ka bax uuna joogaa caaqilkii maanta wuu nool yahay wuxuu ku yidhi aniga iyo gabadhayda noo kala bax caaqilkii basina looga saaray meesha labadii inamood baa soo haray intuu isku kaayo soo xiray ayaa wuxuu ku yidhi aniga gabadha nasiiya 1 week amba 2 week haddii ay labadaa week wax ku hagaagi waayaan dan waad soo noqonaysaan oo waadna dhexgalaysaan labadii inamoodba maanta way joogaan oo way nool yihiin waxay yidhahdeen inamadii waa yahay anna waan ogolaaday in la nasiiyo 2 week ilaahay baan ku dhaartay dhowr cisho kadib 2 wiilba aan frame buu ka qaatay social media iskaga jireen inamadii way la soo hadleen macal caaqilkii waxay yidhaahdeen Safiya arrintan waxba kama qaban karno unless aad one shay samayso mooyaan ogolaatay inaan samayno mooyaan waad ku mahadsantahay inaad arrintii anaga noo keentay waad ku mahadsantahay inaad tiri idinkaa isku reer maxaan ku dhadaa ciida galow idinku dhexdiina isku noqda anagu madankii ma joogno halkan aan joognaa caaqilkiina waad arkaysaa halka laga bixiyay marka hal shay baa inoo banaan inankii inaad xidho markaan xidhno wixii uu ka hayo aan sidaa ku kala qaadataan waxaan ku iri maya waan tagay way nool yihiin maanta labadii wiilba way joogaan ana tagaya mar haddaan tagana waxana way iska dhamaanaya kus mar kasta inaad ii timaado ma rabtid waad ballan baad ii qaado been baad ii sheegtay ima jeclida waxaaga waxba kama jiraan processkayga baad iga soo kansashay oo ma rabtid inaad process ii xaraysid fulan saasay sheekada iyadu waa saddexda qodob un bay ahaan jirtay sharcigayga baa ka dhex muuqdood kansashay iyo inaad ii timaado ma rabtid iyo ima jeclid waxaan ku iri haddaan safro oon tago horta inaan tagayna way imanaysaa ima jeclidna meeshay ka baxaysaa 1 mayl haddaan socday sharcigayga baad iga kansashaydiina waxa bedelaya kii halkan baan u soo xirayno kaasna meeshuu ka baxaya marka saddexdii xadhigu haystay meesha haday ka baxaan wax badan ba hagaagay waayahay inamadii sidii baan ku sheegay waan baxay maalin baas baan dhoofay hargeysan ka degay hargeys markaan ka degay airportka isaga iga soo qaaday aniga walaalkay hooyaday dhashay baa jooga iyo walaashay hooyaday dhashay iyo aabahay dhaleen labadaba ayaa wadanka jooga midkoodna ma ogeyn inaan wadanka imanayo walaalkay Jarmal jooga ay ogaa iyo dhowr qof oo kale toos baan u baxay waan tagay anoo xanuunsan oo aad u xanuunsan oo Human Globalkaygu yahay 7 oo tabcaana tagay publicly airportkiisa iga soo qaaday isaga iyo gabadhu adeeru yahay iyo wiil gaari u wada saaxiib yihiin ayaa soo qaaday hotel la yiraahdo Aramis Hotel oo ku yaala daanta airportka u dhowaan anigu markii hore booking ka samaystay hotelkii uu kansalay hotelkii markuu kansalay inaan baan idhi booking ay sameeyay inankii baa ii sameeyay wuxuu iga noo kireeyay hotel la yiraahdo in hadiya muhamsa hadaayo aha saas ah ma soo heli magaciisa ayuu noo kireeyay halkii baan nimi meesha aanu deganay dadku marka ay macsi iyo munaafaqad iyo ilaahay ka cabsi la'aan u socdaan de halkan Ohio Columbus ayaaban daamaha Soomaalida aan ku dhiirin karin
macdala magaalada ugu dadka badan ee dadka inta la eegi ku nool yihiin aan isleeyahay more than 3 million baa ku nool inaan u tago anigu macsi iyo munaafaqad u tago meesha aan deganay waxaan soo booqatay walaashii hooyadii iyo aabihii dhaleen curadii hooyadii oo halka iigu timid waxa ii timid dumaashidii gabadhu guri ka deganayo in adeerkii qabay waxa ii timid gabadhu adeer u yahay oo walaal in adeerkii dhalay waxa ii yimi wiil abti u yahay oo gabadha walaashiisa dhashay oo wiil dhalinyara waxa ii yimi inamo oo qaar yiri habshil bay ka shaqeeyeen oo asxaab ahaayeen oo meesha joogay dhinacayga dadka iman jiray marka laga saaro isaga dhinaciisa dad ilaa 9 qof noqonaya ayaa meesha igu soo booqday haddaan xaraan ku jiro oo ay tahay inaan waxa dee la sheegayo leeyahay dambi baan Ilaahay ka galay ay tahay intaasoo qof maxay marxaati ka noqonayeen wayban meeshan deganahay loo keenay miyaan adii sabab la tagay isaga hadaba iga go'an tahay inaan Ilaahay ka go'o adduunka samaninka ka yaatay isagu joogaha maxaan horay umurahan u sameeyay waay miyaan qaahiradii ana cidiban aqoonin ugu tago maxay tahay sababtaan hargeysa intaan tagay meel walaalkay soo eegayo saacad iyo badii jiro aan waliba macsi ula tagayo ee intaasoo qofna aan marxaati uga dhigayo maxay noqonaysaa dadka aniga dhinacayga ka socday ii imanayay marka laga saaro isagu intuu watay baa 9 people oo wiilal iyo gabdho leh his own sister Saada Ciise Faarax ku jirto dadka inta la eeg sababtan u maraginaya maxay noqonaysaa wixii Ilaahay og yahay hadaanad ku hadlayn wixii ummaddu og tahay ayaa lagu hadlaa labada hadaad weydo waxay noqonaysaa wax kala been bay noqonaysaa Ilaahay ee abuurtay ee dhiigan iyo nafta igeliyay ayuunba ogaa horta wixii iga qabsaday Ilaahay unba ogaa dhowr cisho markaan meeshii joogay 3 maalmood kadib aan ka guuray Boormaan tagay Boormaan ku soo maqnaa week waan soo laabtay magaaladan ku soo noqday Hargeysa waxaan iskugu nimay oo isku balansanay home cable oo heesa la noogu tumay barta markaan soo istaagay waxa joogtay inaan fanaanada oo isaga really relationship ka dhaxeeyay waxa uu relationship ka sheegayo gabadha ay ka dhaxeeyeen oo girlfriendkiisa ahayd barta joogtay heesa laga duubay inantaasi aniga ima taqaanana ma aqoonin through to the media baa laga yaabaa inay magacayga ka taqaanay aniguna sidoo kale wax xumaanona dhexmartay ma jirin muddo bil ka hora intaanan dhoofin ayuu maalin soo wacay wuxuu yiri xabiibi niman saaxiib nahay ayay hooyadii soo dohdii kaliyo dhinteen oo sakaraad tahay oo aad u xanuunsanaysa lacag soo ururi waxaan ku dad badan baan lacag u guriyay uma malaynay in lacag soo laakiin waan soo dadaalay anigoo snapkayga dhowr qof maalmaha lacag uga guriyay ayaa waxaan isiri hooyadan uu ninku sheegayo halkan waxba uga heli mayso dadkii dee kugu xidhnaa wadigani wareeriyay meel kale aad waxaan u tagay nimcaan hilaa nimcaan baan ku nimcaan oo clipkan ila duub qof kasto daawaday uu daawaday clip 1 minute ayuu nimcaan ila duubay oo maamada aan lacag ugu gureynay lacag 1300 u soo dhacday 1150 baan isaga u diray oo maamadii guddoonsiiyay fiidihiina way soo diray inanta waana qaanay qalkeeda inuu ku qayilo laakiin aniga ima oranin waa heblaayi hooyadeeda waa hebel saddexdii buu yiri maalintan tagay ayaa waxaan waday 150 kii dhinaa oo markaan 150 ka diray ka soo dib dhacay ayaan gacanta ku hayay waxaan ku walaal maamadii lacagtan baan wadaa waxaan doonayaa inaad ii geyso wuxuu yiri maamadii waa la soo daweeyo way bogsatayo way fiican tahayo way ku ducaynaysayo maxaan ku dhahdaa ana u geynaya keen maamadu gabadha hooyadeed bay ahayd markii dambe waxaan ogaaday inay inta dhashay hadduu idhi ilaa waa heblaayi hooyadeed they still qof xanuunsanaya kama hoos kacayna waanu samayn lahaa waxaanu sameeyay laakiin si khaayinsan
oo qaayinimo ku jirto munaafaqad iyo been ku jirto buu sodohdii relationship ay sodoh ku tahay ayuu maamadaasi lacag iga qaaday ma doonayo inanta magaceeda inaan sheego iyo familigaas inaan galo sharaf iyo xushmad bay iga mudan yihiin waxay igu sameeysay inantaasi waa waxay cadho ay qaaday oo masayr igu sameysay oo isaga ka timi wax walba oo ina haystay oo naga dhex taagnaa oo buuqoo socday oo masiibo ololeysay waxa igaga kululaatay inuu igu khaayimo gabadh uu saaxiib leeyahay inuu maxaan ku dhahdaa oo arrintaas lacag iga qaado haddana saasay tahay ma muujin oo kamaan guban because xanuun ka xun colaad ka xun baaba systemkayga ku socotaba sheekadoodii markaan ogaaday waan iska aamusay because wuxuu odhanayaan ogaabadee waan iska soo tegay gurigaan imi waa maalinta arrintan siday ku bilaabantay fiidiyahan lala wareegayo meediyaha siduu ku bilowday waa sida tan gurigaygaan iska imi aan deganaa telefoonadii baan kala xidhanay habeenkii meelaha 3 iyo waxbay soo wacay wuxuu yiri isagoo xanaaqsan oo waliba sii gubanaya ayuu soo wacay waan idiin soo sheeko dhaafay home cable markaan imi halkaa ku kulanay home cable iskugu nimi waxaa joogtay inan fanaanada oo ay isaga wax ka dhaxeeyeen inantaasi dhowr bilood ka hor ayuu intuu isoo wacay wuxuu igu yiri xabiibi nimanu nahay saaxiib nahay bay soo dohdii kaliya dhinteeno waa sakaraado waa sidano please maxaan ku dhahdaa dadka u dhaxgal lacag baan soo guray $100 baan maamadaas maalinta u soo helay isagaan ku hagaajiyay markaan lacagtii diray kadib baa waxa uu soo dhacday lacag ah $150 markaan tagay baa waxaan ku iri waxaan hayaa lacagtan $150 baan maamadii u hayaa waxaan doonayaa inaad aad ii geyso wuxuu yiri maamadii waa la soo daweeyo Ethiopia tagtayo caafimaadkeedu waa guro hayb walahi ajir baad ka hesho way ku ducaysay waxa igu tiri maalin kasta way ku ducaysaa أنا waxaan sir maalin kasta way ku ducaysaa maalin kasta isagoo maamada miyuu ku noqnoqdaa anagu saa wada joognaa aniga isaga ii fahima ayaa wuxuu yiri ayaa waxaan ku wariday lacagtii waa tan maamada u keenaysay aan lacagtii soo saaray marka anagu hadalkii haynay fiiman oo timay inankiibu markaa sheegay magaciisa maamadu sadooda u ahayd fiima waxay tiri oo miyaanay ahayn hiblaayo hooyadeed marka madaxan ku haystay maalintan home cable imanayo gabadhaas inay meesha ku jirto gurigeeda inuu ku qayeelana waan ogaa dan meeshii markaan imi inantii waxay islaantay sidii qof ii xanaaqsan oo kale banaankaan u soo baxay wuu ila soo baxay waxaan ku wariyahay adii inantan maxaa idinka dhaxeeya wuxuu yiri maxaan ka dhaxayn lahaa maanu ree hebele baanu ina ree hebele waxna dhex mari karaan maxaa ka qaldan waan iska soo hiidiyo gurigaan imiyo isagana xaafadiiba deganaa baan ku darab garayna telefoonka u xidhay 2 maalmood buu maqnaa xilli ay tahay bishu ay tahay 16 ayna tahay xilli 3 habeenimo meelahaas ayuu isoo garaacay isagoo aad hawada uga maqan oo xanaaqsan oo diriraya oo buuqsan oo qaylinaya oo cayda ka dhacaysa oo buuq ka dhacaya ilaa iyo 6 iyo barkii waxaan ku gaarnay dacwad waa maalinta uu soo duubay codadka uu leeyahay marada kugu ololi waa maalinta uu soo duubay codka uu leeyahay CID-da u tago codad biga hayaade 6 iyo wax ayaan ku gaarnay qaylo iyo buuq telefoonkii baan dhigay 7 subaxnimo isoo wacay wuxuu yiri baabuur baan wataa
ma doonayo gabadha iyo guriga iyo carruurteeda inaan ku dhex buuqno gaadhigaan ku dhex hadlaynaa ay soo bax ani markaa waxaan ku waan iska noqonayaa tirarkii inaan bedeshaan rabin halkii buu iigu yimi waan baxay guriga waxaan ku waan soo lugaynayaa gurigaan ka baxay meel xaafadda ka dheereyn baan ku kulannay gaadhiga markaan saa u galay cabdi speed buu ku qabtay isagoo xanaaqsan oo cabsan oo hawada ka maqan oo diyaabto siduu eg yahay oo u muuqdo inuuna maalmo seexan oo wajigiisa markaad eegto ilaahay waxaan ugu dhaar galay aanu cabdigii saxda ahaaba meesha joogin baabuurka markaan galo speed ku dhiftay aan ku yiri cabdi war balukaadi dad magaaladuna waa saxmad bal aayar u soco ayaa wuxuu yiri diintaada iyo ilaahaaga iyo maxaygaaga waxa ku sameey haddaad hadasho baabuur iyo booyad iyo darbi midkii inaga soo horbaxan baabuur ku qaadaya shibtan ku dadaalay aniga oo isle bal uun intaad isdejin karto isdejin aanan ogeyn wuxuu maagan yahay waan soconay magaaladii baan ka baxnay waan soconay dhulka magaalada u dhow waa iska dhasar geedo badan ma leh meeshii aan is idhi waa kayn ee ugu geedo badnayd markaan joog ag soconno ayuu leexadu galay wadada baabuurka wax yar bay naga fogeyd wax badan oo sab miisiga waa la maqlayay baabuurta jidka maraysa laakiin meeshu kayn bay ahayd bartii markaan joogsanay waxaan tagnay isagoo oonan caadi ahayn qaylinaya oo labada ka xumbeynaya oo daalan oo buuqsan oo nolosheedii baad gubtay sharcigeygii baad baabi'isay nolol Afrika adigu soo celisay maxay baad igu samaysay kanaad igu samaysay anigii waxaan leeyahay Afrika inaan ka kaxeeyo abnu imi waad igu soo celisay maxay tahay Afrika baad joogtay meel Afrika baa ka timi waxaan arkay inay talo fara ka haadayso waxaan arkay cabdi subaxa inuu ugu taganaa baaburku ka baxay banaanku istaagay sigaar buu cabay wuu soo wareegay daaqadu faray wuxuu yiri soo bax waan soo baxay haddaan idhaahdo cabdi way feeray oo way ilaago waxba igu sameeyo budbo igu dhifto kan igu dhifto haddaan idhaahdo maalinta yawmul qiyaama ayaa la soo fadhiisanayaa la odhanayaa ku noqo inuu saa ii gundhiyo amba uu taabto amba ii riixo amba shamadu saa iga dhacdo mooyaane feed iyo laag iyo butoona iguma dhifan bartaasaad aragteen ee seeska ah meel u yaro dhow oo geed agtiisa ah ayaan fadhiistay waxaan isku dayay intaan kam iska dhigi karo inaan iska dhigo oo him baan afka iska furtay waan isciilkaan biyey waxaan arkay wixii isoo haystay oo dhan anoo og meeshaan imi inay maanta end of my life halkani tahay waxaan idhi waxaan ogaa oon hubay ayaa jira oonan horey kaagala hadlin oo maxay ah buu yidhi waxaan ogaa baan idhi malagaygii inaad tahay uu ilaahay ifka igu tusay moolekul mawdkii nafta iga qaadi lahaa oo humana inaad tahay ayaa maanta ii xaqiiqooyin laakiin waxaan ku faraxsanahay adoona ceebayn ad aakhira iyo dirto taasaa la ii qaatay cabaar baan halkii ooyay wuxuu yidhi naadiridaadana wax ku falimayno balaayayaa ku dishay iyo baas meesha ka soo kaca haddii aanad dareemin qofka dhibaatadiisa aanay weli ku soo marin dheel bay kula tahay maanta waxaan halkaa usoo fadhiistay inaan emotional iska ilaaliyo hortiina dib ugu ooyin ilaahay siduu ogyahayna aan hortiina soo dhigo bartaa markaan ooynayay ee cabdi ambogiya bacis ku nidhi een damiya raxis ku lahayn ee uu lahaa maxaan ku idhaahdaa uu qaylinayay ee uu hadaladiisii maba kala xasuusto diin cay iyo malaa'iga cay iyo aniga cay iyo maxay cay unsaa daldalan u talmeeyay inaan na ooynayay haddaad i arki lahayd maanta waad ii garaabi lahayd barta haddaad ila joogi lahaydeen waad ii garaabi lahaydeen 9 subaxnimo ayay ahayd marka fiidiyaha hore la duubay
fiidiyaha waa la jarjaray fiidiyaha in baa laga jaray fiidiyaha maxay baa laga jaray 1 minute snapchat waa snapchat-ku waa wada 1 minute isaga is jarjara hal daqiiqo markuu duubaba wuu isgooyaa bartaasaan soo fadhiistay fiidiyahaasuu iga duubay cabdi isagaa gacantiisa ku duubay labada telefoon midkuu ku duubay aniguma garanay laakiin gacantiisuu ku duubay labada telefoonba sidaan u soconay gacantuu ku haystay intii hore oo dhan den markii dambe way maslaxay wuxuu yidhi xabiiba shaydaanka iska naar weligay gacan kuma saari doono gacan qaadka ma aqaano haddaan ku dilayo maalintii hotelkan ku dilaa maalin baa jirtay anuu isaga wax ku dhiftay haddaan gacan qaadayo maalintaasaan maxaan ku idhahdaa wax kugu dhifan lahaa weligay naag ma taaban waan af xumahay waan cayb badnahay waan darar badnahay laakiin gacan ma aqaan mana kuu quudho inaan ku dilo ka cabsiyo handad baan islahaa raalli ahow halkiiba waxaan idhi aan isku maslaxnay oon dee anigina aan is-iri bal nabad ku noqo hargeysa nabad ugu noqo haddaad ka xanaaqsisa mar kale he will cut your head off haddaan doonayo cabdi inaan jaafeeyo intaa uu yidhi maanta ma sheegeen waxoo dhanba xumaan iyo caybaan ka dhigi lahaa markuu leeyahay filim bay dhigaysay oo maxaan ku idhaahdaa filim bay duubaysay yaa reed inaad intii filimkaa ka horreysay aada duubi lahayd ummaddu way matagi lahayd saan u barooranayey iyo bartii aan fadhiyey iyo sidaan u barayootamayey haddaad duubi lahayd maanta dadku kana may eegeen ku ka daran baa ku jiri lahaa media oo lali lahaa ilaahay isagaa qafuur raxiima oo labadayada noo dhexeeya waxaan go-aan ku gaadhay inaan bartending sameeyo intii aan kayskaa dejin karo yes kelibadu inta way ka badnaayeen qaar uu duubay iyo qaaraan duubayba way ku jireen laakiin labadii duhurnimay ahaayeen kaasina 9kii subaxnimo ahaa 9 o'clock to 2 p.m. inta u dhaxaysa qiyaas ma toon baan ka beeraynay inta caagad biyo ma aanu haysan xataa ma aanu soo quraacnin 7 o'clock baan soo baxnay caagad biyo ma aanu haysan meesha waxaan wadanay meesha yaala waxay ahayd baakir sigaar watay iyo baashi dabka lagu shiday wax kale ma aanu wada intaasoo saacadood cadceedaas maxaan ka qabanay labadii duhurnimo ayaan duubnay kalabiyo kala badan oo qaar ay ku jirto oo qaar handadaad ku jirto oo qaar qosol ku jiro oo qaar geedihii iyo kaymihii aan kaga sheekaynayno dhartii ku jirto oo isku oo badan waan soo heshiinay baabuurka saan un baa socon jirto anoo Columbus jooga lay handadayay haddana aan lacag dirayay inuu la hadlayay inuu heshiinay waliba u sii dhoofay codadka dhageysateen ee tirada badan Columbus anoo joogay soo dhaceen cayda ah ay arkaysaan ee tirada badan aanan ka ahayn laba cod mooyaane inta kale ba anoo ku ahaay joogay soo dhaceen handadaada inta leeg anoo og ayaan halkii uu joogay tagay wali iyo fayoobi waxay ahaydba baabuurka ana soo waday ilaa intaan magaalada soo galayna anagoo qabiil sheegayna anagoo abtirsanayna anagoo hadlayna anagoo intii aan maxaan ku idhaahdaa filimka qaybtayda kala jilayay dee uu sheegay anigu nafbadbaadinta aan ka watay isaguna markii dambe dee uu isdajiyayba oo uu intii dambe uu normal ahaa ilaa qiyaamaha inta la soo horjoojiyaa la oran ku cadee maalinta yawmal qiyaama idinkoo ay wada daawanaya ayaan soo jilay sidii baan ku soo galay magaaladan ku nim cayda aad aragteen iyo hanjabaada aad aragteen iyo guhaada aad aragteen iyo bahdilka inta la eega dhageysateen iyo 65% aydaan arkin oo halkaan ku jira 65% aydaan arkin oo halkaan ku jira giddigood maalinta way ku horeeyeen 16 bisha way ku horeeyeen waxa ka dambeysay maalintan sawirada galay maxaan ku radaa garbasaarta huwanahay buniga waxa ka dambeysay
heesaha markaan isla qaadaynay heesahaad aragteen baan la duubay maalintaas kadib on and off kii baan ahayn maalintaa markaan soo noqonay maxaan ku dhahdaa aan meeshaan nimidnay aan heshiinay cabdi wuxuu tusay taleefankiisa ii furay taleefankiisa waxaa ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa og ilaahay unbaa og maanta anigu waad waxaan aqsan tahay ku talax tegay waad isdirirteena waxa ceebad aragtay halkan ka sheegay waxa masiibo meesha taalay halkan la soo fadhiiso aniga ima qosayso san horeyba idin idhi anigu saydkayga ayuun baan ka hadlayaa laakiin waxaan idin sheegayaa naagta keligeed gowracan ee dilan ee telefoonka ku jirta inaanan anigu keligay ahayn inaan ugu yaraan 11 naagood oo caan ah ay halkaasi ku karaama seegayaan ay ku masiibada ku soo socota ilaahay subxaanahu wa tacaala haduna de ilaahay idin saqrin idinka ima soo qosaysa aniga maanta taasi taydan baa intayda ay qosaysa wuxuu itusay 5 hablood oo isaga wax dhex mareen isagoo isle micnaha amba emotionkeeda bedel ama isle kama sirsi ama waxban isle 5 hablood oo caana ayuu tusay I don't care to horba soo arkay wuxuu yiri inta heblaaye ahayd ayay isgubtay dartay bay isku gubtay waxa ay dhashan hablood iyo taay isgubtay waa isku fiicantii isku tiin baatiin isku wada fiicantii aniga gabdhaha islaamida afka ay gali this is between you and me dad kale ma qosayso anigu markaa kali haatay waxaan isleeyahay Columbus taadii ku noqo intaanay sheekadani kugu qarxin dadku idin maqal waxani uuna haad farahaga ka bixin inamadii arintayda ku jirayna waxay leeyihiin adoon hawshan meel saarin ha soo bixin maalintan heesta duubnay heesaha aan isla duubnay fiidiyaha daawateen habeenkeedii baan anigu baxayay oo boorama tagay dadkii i qaadayna way ila joogeen oo goobtaasay nala joogeen heesaha ku duubnay bartaasaanu isaga ku kala tagnay isagoo waliba gabdhihii ku qayliyay weeraana layikiin soo diray way wada nool yihiin way joogeen 5 hablood bay haayeen waleeyahay maxaan ku dhahdaa ma idin ma raacayso uu u diiday xataa inaan raaco way gabdhihii ku yiraahdeen waran soo taraafalay dhowr cisho oo ogolo way nala soo joogto waanu soo celinaynaa isaga waxaan ku iri wallaahi alcadiim ilaahay bay maqlayay habaarkaygii kow aan cajalada ku bilaabay ilaahay iga dhabeeyo inta aad soo marteen hadaan xabad bedelay waxaan ku iri isoo doon markaad adu isoo doonto ayaan ku soo raacaya waa sheekadii relationship ka ahayd baa maalin walba tii marxaatiya loo sameeynaya maskaxdiina la kaashada idinku habeenkii aan baxayeen boorama tagay waxay habeenka la xiray aroortii markii la soo daayay isagoo xidhnaa anigu waan baxay boorama tagay wuu ila soo hadlay wuxuu yiri aday xiray taleefankaygii adaa masaxay horta wuxuu yiri ma aday xiray habeenkii waxaan ku dhaartay inaanan xidhin oo shaqo ku lahayn taleefanka in laga masaxay markaa ma oga isagu waaba laga haystay kaygana waa la haystay aniga familigayga asxaabtaydii waxay xoog saareen inaan dhakhtar la igeeyo dhakhtar baa la igeeyay hadana waa la kaxeeyay meel la yiraahdo Abdaal oo berbero u dhow sheekh jooga ayaa la igeeyay haddaad u baahataan hortiina soo dhigaya sheekhi cajaladihii la duubay maalintii la iga duubayna waan hayaa iyo wixii meesha ka dhacay sheekhi dawooyin buu ii soo qoray 2 maalin baa la igu celiyay wuxuu yiri meel aan internet lahayn inaan kana aanay iska maqalin geeya dawada inta u dhamaanayso sidii baa Ethiopia la igu geeyay Ethiopia anoo jooga ayaa waxa dhacday Facebook-giisa inuu ku soo qoray qoraal dheer oo sheegay inaan anigu xiray taleefankiisa in la delete gareeyay cabdi wuxuu sheegay in taleefankiisa la delete gareeyay
haba la delete gareeya kaasoo kaba soo qabda waa la delete gareeyay fiidiyoyadan yaacaya xagee ka yimaadeen fiidiyihii maalinta youtube-ka lasoo geliyay fiidiyodii laygu handadi jiray ka midka ahaa adoo gabay noocaasa ku gabayaya intaasaaba kugu filan bay odhan jiray xagu ka yimi sawirada uu hayo uu hablihii asxaabta ahay inuu ka qabtay uu leeyahay sawiraan idinka hayaa ee on tusmo maxaan ku dhahay ii soo dirtay oo soo camera roolkayga kala baxay xagee ka yimaadeen haddii telefonkiisii lagu sameeyo format una waxba gacanta ku hayn waxaas oo dhan xagee ka yimaadeen haddaba ana idin sheegay xay kamid ah cabdi wuxuu leeyahay 3 telefoon oo saddexdaba aan u gaday wuxuu leeyahay telefoonka oo booga ah ee uu leeyahay waa la iga masaxay wuxuu haystaa iPhone 11kii aan July diray wuxuu haystaa telefoon OnePlus ah oo anigu geeyay markaan hada tagay wuxuu haystay laptop aan anu halkan uga diray afartaa shay baan ku ogahay oo electroniga haddii mid la masaxay saddexdii kaleba wuu haystaa sidaa darteed bayna waxba uga bixin aniga dawadeydii iyo cilaajkaygii iyo hawlahaygii baan iska watay waxaan decide gareeyay inaan iska aamuso intay diyaaradaydu gaadhayso waxay la soo hadlay wiil isaga ilmaadeer yihiin oo Axmed la yiraahdo oo maalmihii horena dadkii ii yimiday kamid ahaa oo igu yiri wiilkan anaa ka masuula anigu in adeerkii yahay anaa ka qabanaya anaa ka adag ba igala soo hadlay jigjiga markaan joogay wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan arrintiinan galo inaan kula hadlo goormaad imanaysaa wadanka waxaan ku iri maalintan saaw imaadaan kula soo hadlaya boorama markaan tagay waan la hadlay inankii waxaan ku iri walaal waan imi inanka kali haata waxaan rabay inaan dhageysiyo codadka aan hayo iyo qoraalada aan hayo inaan tuso anigu haddaan fiidiyo iyo baafinayo aan codad baafinayo aan wax walqinayo ina adeerkii baan ka diiday inaan u diro oon burco ilaa boorama u dareef gareeyay si aan cod u dhageysiyo anoo diri kara WhatsApp-kiisa ku diri kara uuna yahay qofkii dad ugu dhawaa intii qof arintayada soo gashay ee nagu soo jirtay ee arintayada ogeyd ee isaga la hadashay hadii la soo helo qof yiraahda intaasaan arinta ku jirnay oo safiyo codadka iyo qoraalada inankaasi u soo diro way noo soo diri jirto waan akhrin jirnay kurka intaasaan dhiganaya wax suugaan iyo gabay ku saabsan mooyaan wax aniga isaga nagu saabsan qof aan u diray hadii la soo helo wax alla waxa yaala korka hala iga saaree meesha ka socda inankii waan u tagay waxaan ku iri walaal waan imi wuxuu igu yiri waan shaqeynayaa caawa isma arki karno waxaan ku iri walaal bari waan baxayaa 20 daqiiqo kali haataysi wuxuu igu yiri haduu wuxuu 20 bay yahay daqiiqo uu ku dhamaanayo telefoonka igu sheeg waxaan ku iri walaal boormaan kaaga imi intaasaan soo taraafalay maxaan ku dhahdaa waxaan intaas soo sidayna dee 20 daqiiqo haba ku dhamaaday laakiin ma aha waxaan telefoonka sheegi kare balan ii qabo wuxuu igu yiri joog dadka kula socda ka hadh dan barita aan kulano waxaan ku iri walaal ma joogayo ani kaliya ujeedadaydu waxay ahayd inaan ka tuso dhibka ay haysta bis wuxuu ka qaban karana aan weydiiyo inankii ma suurtoobin habeenkii inaan isaragno subaxda 12kii way balamiyay 12kii telefoon ku xidhay waan iska soo baxay 12kii saac iyo barkii markaan saacad sugay iyo wax dhexda aan soo marayo soo wax wuxuu walaal hurda ila tagtay xalay oo dhan baan shaqeynayay ilaahay baa walaaltay igu og waan aaminay waayo qof xal oo dhan soo jeeday saaka haduu yara seexdo ilaa barqada hurdi karaade waan soo laabtay barbaraan soo maray hargeysaan ku soo noqday qoraal baa ii soo dhacay dheer oo telefoon Ethiopian iga soo dhacay waan hayaa qoraalkii haddaad islahayd telefoonkiisi waad masaxday haddaad islahayd waad xidhay haddaad islahayd maxay baad samaysay haddaad islahayd kanaad samaysay haddaad islahayd maxay dawladda la kaasho haddaad sidaan islahayd haddaad islahayd aqli badan tahay dadka aqli badan baa jira wixii aan ka hayeyna waa kan waxaad yeeshayna ma jira adoon baa wax isyeelay waxaad iga masaxdayna ma jira wax walba waan haystaa wadankiina waan ka tagay waa inoo hadda iyo labadeena iyo media codadkii oo dhan qoraaladii oo dhan intaan forward ka dhigay codadkii aan burco la tagayna aan ku lifaaqay cod dheer oo aan u duubayna aan ku daray baan u diray inankii ilma adeerka ahaayeen ay igu yiri ninkan anaa ka masuula ee burco markaan tagayna ay jaray
inamadii Mareykanka joogina waan la soo hadlay oo waxaan ku yiri saas baa dhacday way la hadleen anigu haday ahaan lahayd qofkii xidhay xarigan oo ku waashay oo ku wareeray sameysay halkan islama soo gaadhnina waan ka gun gaadhi lahaa maalintaasan codadkan iyo balaayadan intaan nimanka dhageysiyo ayaan oran lahaa walaal warqadna iiga saxeexa afartii bishan Hargeysa ka dagay ilaa iyo cimrigayga intaan soo noolaa ilaahow awlaadayga qaad oo calaamad degdegay igu rid oonan ciida gaadhin iska dhaaf nin u shaqeeya dawladda meesha u sareysay nin askari nin ah inaan Soomaaliland ka aqoon hebel waa askari hebel waa police inaan ka aqoon iska dhaaf the head of the country FBI da wadanka inaan qofka aqaanin access ka xagan ka Kenya markaan oo booday kor u booday anyway waxa dhacday qoraaladii iyo wixii oo dhamaan wiilkii u diray wiilkii ima soo jawaabin inamadii baa ila soo hadlay Mareykanka joogay waxay igu yiraahdeen tusmoy waa run marka Cabdi wuxuu bilaabay inuu qof walba yiraahdo waxaan ballan ku qaaday inay istisho waxaan ballan ku qaaday inay niqaam suuqa ku marto waxaan ballan ku qaaday inay sida noqoto waxaan ballan ku qaaday inamadii baa kamid ah oo maanta marxaati ah kaltuun Musa kamid ah oo marxaati ah dadkii uu yiri waxaan ballan ku qaaday inay indhaha xidhato waxaan arkay inuu dadka u sheegayo inuu waxayo una wadankiina ka tagay maalintaas ayaan interviewgii bixiyay fahimaan ballanta la lahaa kun su'aalood iyo su'aal waa barnaamij gaar ah oo dadka fanaaniinta dhan laga qabto arintiisa may quseyn laakiin emotional kaygii dhan baa bedelmay waxaan dareemay guilty waxaan dareemay intaasoo Janice inaan lumiyay inay maalinta raggaas haday ii xiri lahayn waxaan i dhacdeen ina maalintii la xirayba hadaan carar la oran la arintana way jirtaa oo wana kala fujiyo tan i dhacdeen ina hadaan dad u sheegi lahaa kale waxaan i dhaceen intaasoo Janice aan iska beerdareeyay maanta gacantayda ka baxay halkii Mareykan iyo Hargeysa aan maanta kala joogno oo kale maadaama Ethiopia gunteeda ka soo hadlayo aniga oo sidii ah oo macaan layga helay oo xanuunkayga isdaab si kale yahay laakiin caafimaad ahaan cilaajadii la geeyay iyo dhulkii ku soo bogsaday oo sidayda kala qalbiyan iska fiican ayay inamada ila soo hadleen waxay dhaheen tusmoy inanka Ethiopia jooga saas uu leeyahay walaalay iska dhaaf wax kale annaga arinta intaas oo bilood waan ogeyn xataa waxay nagu noqonaysaa dhibaato kale maanta inuu kuugu dhowdahay inankii walaal annaga ka hayf xigna annaga maxaan ku raa inta hawshan ku jirnay waxaanu soo go'aansanay inankii inaan xidhno Ethiopia ku xidhno way nool yihiin Fuad waa Bariye Maxamed waxaan ku yiri walaalo uma qooro Ethiopia inaan ku xidhno uma qooro jeelasha Ethiopia way xun tahay markuu soo noqdo hayno ahaato bal qof isagu kafankaagii qodaya oo dhibaatada inta la ku soo mariyay oo hawsha inta la la martay oo wali adiguna maxaan ku raa kabihiisa tolaysa ka sheekay inamadii waxay dhad masaas baaha daawal beenay caamahay way ogaayeen oo aan dhig lahayn iska amse maninkii Ethiopia kaaga soo hanjin ee dalkii ka tagay ee anytime qoorta ka goyn kara ayad wali baleedahay uma qooro debis inamadii sabay ku amseen maalintaan inamada kula haa uma qooro caawo kale bari subaxa ayaa everything social media haygan haystay kiga aad loo igu sameeyay Snapchat kiga la wareegay Facebook kiga inta aan soconno in cilaash tagayo in buuqayno in dagaalamayno in damtahayno ajoon teleefankayga passwordkiisu hayay saadkayga passwordkiisu hayay Snapkayga passwordkiisa isagoo jooga Egypt uu halkan ka gali jiray uu hayay Facebookayga passwordkiisu hayay every social media aan leeyahay wuxuu haystay passwordkooda midna ma bedelin aroortii markaan soo kacay waxaan arkay Snapkayga meesha ka maqan Apple ID-gayga oo maqan waxbaan rabay inaan soo download gareysto Apple ID-gayga weydiisay saasaan ku ogaaday in passwordka Apple ID-ga layga bedeshay
waan hadlay waxaan sheegay Facebook aan ku soo qoray anoo Facebook saa uu ugu qoray oo share taabta kick out laygu sameeyo Facebook waan ka baxay layga saaray clip baan duubay aan leeyahay social media hayga dhan gacanta kuma jiraan waa la igala wareegay marka sawiradan lama soo dhigdhigin qoraaladani lama soo dhigdhigin laakiin waxaan ogaaday kaliya inuu gacantayda ka baxay dhowr saacadood ka bacdi waxaan arkay dareefleesankaygii adreeskii caruurtayda socialkii ilmahayga oo media yaala anigoo emotional noqday sidaan horeba idinku sheegay ayaan hadlay on leeyahay maxaad noo yeeraysanaysaa maad hal marna soo wada shubtid galabtii buu isoo wacay wuxuu igu yidhi waxaan socda dhan ma uga soo wada jeesanaa mise ninba ideyadiisu ka dhiibtaa say doonay ha u dhacdee waxaan ku idhi walaa aniga oo og meesha ay wax ka imanayaan iyo waxa uu maagan yahay oo million times igu yidhi caddayn ma haysatid waxaan ku idhi walaa maanta waa maalintii ugu horeysay ee uguna dambeysay in adduunkan ku baahday waxaan hadda bilowday haddii aynaan together u joojina faruhu ka baxaya talakeen wuxuu yidhi Facebook aan kusoo qorayaa inaan fahminahay adiguna hadalo dadkii oo dhan baa ii hanjabayay waxaad sheegtaa inaan arrintan bari ka ahay waxaan idhi waayahay fahmi baan ahay hadhihina fahmi baan ahayaan jirnay dhimaan codkii baan anigu duubay waxaan la hadlay Shiine isagoo tiisii uu ka baxay isagoo oo leh halkan isagoo oo raba inuu ka create gareeyo problem iyo masiibo habeenkii maanta markii waxaan dhaceen oo codkayga duubtay caawa kale isoo wacay caawa markuu isoo wacay ayaa wuxuu yidhi waxaan doonayaa waxaana way dhacaan way iska dhamaan doonaan wax walbo dadkan waa lagu arkay social media wixii doonahay iska socdo they gonna forget you laakiin waan imanayaa xaflad baan ku sameeynaya wadankan ka amba bixinaya maantana recording buu iga qabsaday codkii laga soo shaqeeyay la soo hagaajiyay waxaan ku yidhi waa hagaag awal badii waa hagaag u banaan jiray waa hagaag hayno haato markaa timaadid daqiiqada ka bacdi buu ila soo hadlay wuxuu yidhi ninkii aan ku heshiinay waan imanayaa iyo hadalkaas wuxuu yidhi lacagtaydiisii iska kay reeb sponsor kaama rabo waxba kaama rabo waxba iskuguma keen hadhin keli haata waxa iskugu keen hadhay waa lacagtii maalinta Itoobiya qoraalada dhaadheer iga soo qorina qoraalkiisa waxa kamid ahaa aayar wixii iskugu keen hadhay ma ka wada hadalaa waxaan ku lacag ma haysto mana ku siinay ma ba haystaba ballantii aan ku qaaday wali waa bartii sponsor kaageena waa ku diyaar hadaa diyaar u tahay wasaas wuxuu yidhi ma doonin waxa doonaysaa Mareykan ku qalato Hargeysa bada wuxuu dhayn uma socdi kaas lacagtaydan ku rabaa isagoo lacagaysan baan ka rabaa waxaan ku qof keensa hadaba qofka konton kun ha ku noqotay lacagta ka qaado dan marka saan ku kala qabno wuxuu yidhi adigu qofka keen aan waxba igama gelin qofkii waxan horta adigu lacagtayda ii shub halkaas baan isku dilay hadalkii anaga iskugu kaayay dambeysay in habeenka ay isniraahno bishu markay ahayd 24 kaas buu ahaa fariimo way soo dirayo kolba qof intuu waco uu yiraahdo hadii saa sameey weydo saasan ku sameeynaya mooyaane hadaba waxaan idin sheegayaa Soomaaliya sheekada inta sayrkayga ahayd waa taas sidoo Ilaahay igu og yahayna waa ka habaarkaygu waa kii aan anigu is habaaray ee ugu horeeyay maalin qurahatay waxaan inta ka daba geynay maalin qura hadaan intaan ku seexday aan ku soo toosay inaan laqdabad ku sameeyo
hadday noqoto processkiis hadday noqoto lacag hadday noqoto maxay one night haddaan ku soo kacay inaan xume ka aarsado ama xumeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala intaan isku soo habaaray oo dhan igama tago one day haddaan anigu xidhi lahaa haddaan anigu maxaan ku idhahdaa waxaan oo dhan samayn lahaa haddaan xataa cabdi xabad ku dhifan lahaa uma dhiganto hala habeeni intuu isoo mariyay waxa kaloo intaa daba socoto social media lala wareegaya Safiyatus ma snapkeeda lama jabsani waxaan iyada sii daysay aqliga Soomaalidu sidoo u shaqeeyo ayaanan anu garanay aniga haddaan aniga isfadeexadeeyay oon anigu ceebta intaa leeg anigoo haysta haddaan anigu wax uun samaynayo oon wax kayska ku saabsan uun aan samaynayo waxa igu dhacay baan idin sheegi lahaan toos uga sheekayn lahaa codadkaas aan idin dhageysin lahaa masiibada ay haysatay sanad iyo jarjar baan bartaas oo dhigi lahaa anigu isaga dhunkanaya banaanka ma soo dhigeen anigu oo Hargeysa jooga toddobadeeda u badan aqalka ku xidhay Columbus Ohio crime-ka ka jira aan uga hayay tahay gobolka ugu crime-ka badan Soomaali markay noqoto dadka ugu waalida casay ugu dhibka badan aan haysano adreeska ilmahayga intaan soo dhigo ma yiraahdeen ordo ubadkayga siilaayo gurigayga u dhaca aniga oo og sharciga Mareykanka hadduu gacantaada ka baxo inaana dib gacan ugu soo dhigay 9 number ee ilmahayga yar yar intaan social ka soo dhigdhigo ma yiraahdeen Soomaaliya gurta ilaa iyo mental caynkaas haddaan idin la ahay waxaan idin lahaa midha aaminina ilaa heerka haddaan idin la taaganahay Soomaaliya kun jeer waxay ugu soo noqonaya waxa la yiri fiidiyoyada yada dirtay fiidiyada ida haysay fiidiyada Safiya way haysay isaguna wuu hayay waan hayay fiidiyoyadan tirada badan ee yaacaya ee maanta qaarna la igu handadaya qaarba meel ordayaan waan hayay yes laakiin snapkaygii bay raaceen oo la jabeen dad baale hadaba fiidiyaha haysay maxaad ugu dacwoon weyday codadka xun baan hayay codadkaad aragteen ayaan hayay anoo la ii hanjabiyo sharaftaydi cirdigayga karaamadaydi lagu tumanayo ayaan hayay oonan qof la wadaagin fiidiyuhuna codadkaas uu ka mid yahay fiidiyo kala jiray oo kuwan la dhex ordayay aan ahayn oo kan ka daran ayaa jiray oo ku jiray oo idinku haysaan kullayba deydinku baahaya fiidiyaha waa la jarjaray fiidiyaha in baa laga jaray fiidiyuhu waa 1 minute full ah snapku isaga is jara 1 minute kuwa kale oo dhan waa wada 1 minute ana isfadeexadeynaya oo ceebahayga walqinaya oo soo dhigaya maxaan ka faa'iiday macnaha sabab dadka Soomaaliyeed waxaan idinku dardaarmayaa maanta halkan iga daawanaya haddaad Ilaahay taqaaniin oo islaam tihiin oo islaamnimadu idinka dhabtahay inaad magacaygu maanta idinku dambeeyo inaydaan media jiidin maanta laga bilaabo waxaan Ilaahay ka baryayaa laba shay dhibaatada dhacday inay ani kali haati igaadho oo ay cid kale gaadhin inaan noqdo the only person oo dhibaato gaadhay oo inaan arintaydu dad kale saameynin taasan Ilaahay ka baryayaa dad kale tusma Soomaaliland bay duulimaad ku tahay waxay doonaysaa war inay kaliya garayso wala la weeday inta qof la Soomaaliland iga soo hanjabaysay iskaga ka dhigaysa inay dalka iga xigaan ana idinka wada laandarsan haday dawlad noqoto iyo haday calanka noqoto iyo haday u samirkeeda noqoto iyo haday dhisideeda noqoto the only person Soomaaliyeednimadu ay dhab ka tahay baan hayno Soomaalinimadu waa u dhalasho inaan Soomaali ahaado waan u dhashayde cidna uma daba fadhiisanayo Soomaali baan hayaabahay baa u dagaalamay dagaalkii 77 u galay awowgay baa Ingiriiskii la dagaalamay Faransiiskii la dagaalamay ma faantay Soomaali baan hay cidna uma daba fadhiisanayo anigu Soomaalinimada mana la igu dili karo Soomaalinimo Somaliland waan hayo asamaader baan ku ahay calanka Somaliland ninkii sameeyay baa caruurtayda adeerkood laxmi ah Somaliland hadii la kala goosto oo maanta ciidaba meel qaadato oo maanta hal geero la gowracay noqoto araxda iyo awlalka iyo kuruska iyo dhabarka ana qaadanay intaba ana qaadanay
ummadda kale caloosha iyo lugaha iyo madaxa iyo inta kale soo hadhaysa because Somaliland dadkii aas-aasay bay dhalay dadkii dhidbaha u dhisay ayay dhalay aabahay baa ku aasana ilaa qabuuraheedan iyaan dugsadaa anigu naag iga xigta Somaliland ma jirto qofkii qabyaaladu soo baxay qabiil soo baxay is your choice laakiin aniga Somaliland nimo iska ma xijisiin kartiin because gidigiina baana idinka laandarsan gabdhaha wiilashoodii iyo gabdhahoodu Soomaaliya ka soo jeedaan calanka buluuga ah aabayaashooda harsanayaan de walaalo naagi waa ninka qabiye ilmaheed aniga ilmahayga asamaadar baan ku hay Somaliland idinkoo dhan ana idinka xiga soo hay iska dhigina inaad idinku iga lex jecel badan tihiin Somaliland haddayna aniga ahayn tusma ahayna maanta afarta adin bay kor taagi lahayd afarta adinba kor bay u eegi lahaayeen erka because of me Somaliland caawa inay Somaliland tahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inaanan koos garaynin anigu dhibaato ilaahay waxaan ka baryayaa magacayga inaanan lagu dagaalamin anigu naagta waxaan ahay ninkii hadlaba kor u hadlaba jeel la raadsatay namadooda ee xidha haddaan laabta iska garaaci lahayn tolla ayay reetolkay maanta gada bursi lama jiijideen de media lama caayeen marka inaan isku dheeraan inaan isku akhristeegin aan isku ducayno aniga inaan kaba noo duceeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dunuubiheena ha dhaafo intiina ya caydina cafis baad iga tihiin intiina ii heelisina waad ku mahadsantihiin ajri xasanad Allah idinka siiyo arintu sidaas bay u dhacday wixii igu dhacay saas buu ahaa haddaan ku qaldanahay oo anigu ahay qof qaldamayna aan ahayna madaxa ha la ii saaro haddii la iga qaldan yahayna madaxa ha loo saaro haddaan labada iyaduba qaldanahayna ha la noo kala jabiyo ha noo kala eexanina ilaahay dartiisa u garnaqa ilaa geedkii banaankii la tagi jiray halkan buu yimid social media waa Facebook iyo YouTube maxkamadii waatan ونبي سلام يا دمانتين يسود دعية إلهي سبحانه وتعالى إنه ميديها مقعيق إيقا صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته